DV Lottery 2027 maxaa ku dhacay ilaa hadda website-ka ma shaqeynayo bishii la xareyn jiray ma wax laga bedelay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقد وناكسن صاحبيال halka adiga daawanaysan waa YouTube channel-kayga Sheef Abdallah Muhya hadii ay tahay marka ay kugu horeysay channel-ka nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada ku xiran channel-kan ee ka faa'iideysta muuqaalada aan soo geliyo hadii aad hore u joogtane sharafaad leedahay aad u maasantaa saaxiib fariimahaagana waa arkaa sida muuqaalka ula socotidna waa arkaa waa kaaga mahadcelinaya kun iyo kow jeer barnaamijka maanta wax kala ma ahan waa barnaamijkii aad iga barateen waa barnaamijkii YouTube-ka aan ku bilaabay ee DV Lottery waxa aan ka hadli doona maanta DV Lottery 2027 maxaa ka cusub DV Lottery 2027 maxaa ku dhacay ilaa hadda website-ka ma shaqeynayo DV Lottery 2027 shuruudihii ma wax laga bedelay bishii la xareyn jiray ma wax laga bedelay intaas oo su'aalo oo aad iga soo weydiiseen barahayga bulshada TikTok ha ahaato Snapchat ha ahaato YouTube ha ahaato muuqaalkan ayaan ku sharxi doonaa maanta insha Allah waxa ka cusub iyo waxa ku dhacay DV Lottery su'aasha ugu horeysa oo ah DV Lottery 2027 goorma la xareysanaya jawaabtan waxay tahay ilaa hadda ma cado oo website-ka markaad ku qortid DV Lottery 2027 wuxuu ku sheegayaa saddex waxyaabood oo maaragtay loo xareysan karin DV Lottery 2027 sababta ugu horeysa oo ah in la daahiyay ama hakad lagu sameeyay DV Lottery sida la wada socotaan DV Lottery-ga mar walba wuxuu furmi jiray October 3 ilaa ugu dambeyn October 8 ama 9 ama 10 10 wixii ka dambeeyay wuu furnaan jiray website-ka balse sanadkan bisha maanta waa 24 ilaa hadda website-kane ma furno oo maaragtay cilad daahitaan ama delay ah wali ku jirto waxaa loo eedeynayaa ama maaragtay la leeyahay sababta uu website-ku u furmin waa isbedelo lagu sameynayo DV Lottery 2027 isbedeladaasna waxaa kamid ah in DV Lottery-ga awal lagu xareysan jiray free oo maaragtay wax lacag aan lagu xareysan jirin oo ku shilin adoo bixin xareysan jirtay lacagta kaliya ee kaaga baxeyso waa hadii sawirka aad meel kale ku galeysid ama photographer uu ka qaadayo lacagtaas kaliya aad bixin jirtay balse hadda waxay rabaan inay ku soo kordhiyaan oo waliba ay ansixiyaan bishan 16keeda $1 in lagu xareysto meesha free-ga ahayd $1 in lagu xareysto sababtaas awgeed waxaa loo daahiyay in website-ku uu furmo ama aad xareysatid DV Lottery 2027 sababtaas ayaa number 1 ah sababta kale oo maaragtay DV Lottery 2027 ilaa hadda uu furmi lahayo oo loo xareysan lahayo waxay tahay in website-ka update lagu sameynayo waa ogtihiin wadanka waxa haysto nin cunsuri ah aan rabin dadka soo galootiga ah isaga iyo xulafadiisaba sida darteeda wadamo qaar in laga saaro ay u badan tahay baasaboorradooda aan la aqoonsaneen uu ku jiro wadankeena baasaboorka Soomaaliga baasaboorka Soomaaliga sida wad ogtiin hadii aad ku guuleysatid xataa DV Lottery-ga oo lagu siiyo maaragtay fiisada baasaboorka lagu marjinayo fiisada oo waxa lagu siinayaa warqad sida anaga nagu dhacday oo wadanka markaa soo galeenay wax fiisa ah baasaboorkana loogu madhijinin oo baasaboorkeena waxa ku qorneed warqada fiisada qofka fiisadan iska leh baasaboorkiisa lama aqoonsano oo maaragtay kuma dhijin karno baasaboorkooda fiisa soo waxa laga yaabaa marka in wadankeena laga saaro DV Lottery-ga oo si gabi ahaanbo looga mamnuuco maadaama baan uu saaran yahay annaga iyo 7 kale ama 8 kale oo wadamo kale oo baankaasi isagana uu saameyn doono taasi waa mid xigtana waxay tahay in gabi ahaanba la joojiyo fiisooyinka wadamada qaar in la siiyo loona ogolaado inay xareystaan sida hadda dhacdo oo dhalinyaro badan ku xayiran yihiin Nairobi Djibouti wadamo qaar in interviewgi ay mareen balse la leeyahay fiisa kuma siin karno oo maaragtay baan baa idin saaran naga raali noqda interviewgi waad ku baastay wax walba dhag bay ku yihiin balse fiisa kuma siinayno dhalinyaro badan ay ku dhacdo ila soo xiriiro oo ay dhaho maxaan sameeynaa
so optionka keliya ama fursadda keliya haystid waxay tahay in baasaboor wadamadan dariska aad heli kartid haddii aad heli karto oo awoodid inaad soo qaadato oo qaabkaas aad ku xariisatid oo kadibna aad interviewga sidaas ku martid shuruudihii wali isma bedelin waxaa laga yaabaa sidoo kaleete in lagu soo kordhiyo haddii la ogolaado xataa in baasaboor aad ku xariisanaysid sanadkii la soo dhaafaa u maleynayo sanadka ka horeeyay baasaboor wax la iskama rabin oo baasaboor la'aan lagu xariisanayay groupkeeni xataa markii aan xariisanaynay 2016 wax baasaboor ah kumaanan xariisanin kaliya magacyadeena iyo shahaadaha iskuul inaan heesano ama jaamacad aan dhigano ama jaamacad inaan dhameeyno kaliya shuruudihii waa iska sidii oo waxba kama bedeli doonaan ila tahay shuruuda kaliya lagu soo kordhin doonaa waxay tahay in baasaboor qasab lagaaga dhigo inaan heesato taasna way jiri jirtay oo 2 sano had u dambeysay la joojiyay marka baasaboorkiin iska sii sameeysta website-kana goortuu furmi doona gadaal ka soo sheegaynaa dhahan oo maaragtay website-ka ku qoran markaad Google gareysid ama aad maaragtay raadisid DV Lottery 2027 oo waxay ku leeyihiin wali waqti cayiman lama sheegin oo lama shaacinin naga warsuga intaas uga baxeena sababta DV Lottery-ga aan loo furin sanadkan oo wali u xayiran yahay ama gadaal loogu dhigay ilaa hadda wax cad ma jiro kaliya waxa cad waa shuruudahaas aan idin soo sheegay soo marka maxaa la iska rabaa su'aasha labaad u gudbo maxaa laga rabaa inaad haysato inta aadan xareen DV Lottery waxa ugu muhiimsan DV Lottery inta aadan xareysan inaad haysato waa sawirkana waa inuu ahaadaa sawir aad gashay 6 bilood ugu dambeysay DV Lottery sanad ka hor sawir ku xareysay ha ku xareenan ha isku dayin inaad ku xareyso waxaan computerkana sawirkaaga wuu keedinayaa oo wuu aqoonsanayaa in sanadka hore aad isticmaashay waxaan bini aadam ma ahan waxa ma aragtay aad ku ilduufi kartid waa computer waxa sababta loo yiraahdo electronic diversity visa waxaan computer ku dooranaa dhow hadaa ma aragtay yani doorasho markay imaata xataa oo waqtiga shaacinta jawaabaha ay noqoto computer ku dooranaa computerka marka uu og yahay sawirkan waqtiga la galay hadaa sanadka hore ku xareysay iyo hadaa sanadkan ma aragtay uu cusub yahay soo mar walbo sawirkana iska sax size-kiisa dad professional hadaa taqaanid oo sawirada edit gareeyo oo sawirada sida loo qaado yaqaano Soomaaliya da joogtid dhalinyaro badan oo ku shaqeystaa jiro la heshii lacagaha way kala duwan yihiin sawir fiican oo loogu talagalay DV Lottery-ga iga qaadde size-ku waa isla size-kii 500 times 500 ama 600 times 600 so iska sax sawirka size-kiisa color-ka background-ka waxoo dhan wax filter ha u isticmaalin wax edit ha u isticmaalin haddii aan u gudbo gabdhaha sawirkooda gabdha muslimiina ma aragtay tihiin diinta islaamka heesta xijaabkaaga adoo sawirka waa gali kartaa ma isqaabin karaa qoorta may waxba isqaabinin waxba xijaabkaaga ha tuurin sawirka waa lagu ogol yahay adoo xijaaban inaad gashid same thing sidoo kaleete yani isku mid ba u galeysaan sawirada wiil iyo gabar waxa tahay kaliya xijaabkaas ku kala duwanaanaysaan saaska isku siyaaladin karaba background isku siyaaladin karaba dheerarka balaca waxoo dhan isku siyaaladin karaba sawirka marka ka soo gudbo waxa muhiim ah address ina qortid waa ogahay Soomaaliya address sax ah ma jiro balse tusaale ahaan mar walbo xareenay DV Lottery waa aragtaan fiidiyoyada hore ku laabta wadada xaafadiin ugu caansan aad ka dhigan kartaa ma aragta addresskaaga tusaale ahaan reer Madiino wadada dheer jaalasiyaad ka dhigan kartaa number inta ka hormarisid guriyaha number way leeyihiin sidii hore ma ahan hadda numberka gurigiina wadada dheer ama wadadiina hadii magac leedahay magac loo bixiyay magac wadada ku qoreysaa districtiga waxa ka dhigaysaa wadajir hadaa degan tahay Dharkeenley hadaa degan tahay Shibs hadaa degan tahay Hoodan hadaa degan tahay Yaaqshiid Cabdicasiis Xamarweyne horta degmamiya yes Xamarweyne waa bari yani waxoo dhan kaaxda ilmihim districtiga waa kaas state kan waxa ka dhigaysaan Banaadir insha Allah website-ka markuu furmo sanad walba ku celceliya waa soo galin doona insha Allah aanoo sawirkayga isticmaalay taas waxa uga baxo qaybta ma aragtay addresska muhiimada waxa ugu muhiimsan asagana sidoo kale waa qaybta waxbarashada
waxbarashada number 1 waxa ugu yar ee laga rabo inaad haysatid waa shahaado high school ah shahaado high school hadaadan haysanin DV lottery waa ka mamnuuc khasab waa inaad haysid shahaado high school ah hadaa haysanin maxaa sameyn kara website-ka kuuma ogolaanayo adoona dooranin qaybta waxbarashada ugu yaraan shahaado high school hoose ku qoranta xataa minimum waa inaad haysataa shahaado high school number ay ku weydiinayaan sidoo kaleete email sax ah oo shaqeynayo oo yani aad isticmaasho passwordkiisana aad xasuusan karto haddii passwordka ilaawday mid cusub iska sameyso wuxuu ka saacidayaa emailkaas haddii confirmation numberka uu ka dhumo in aad soo celin kartid sidoo kale waxyaabaha lagu wareero waxaa ka mid ah magaca last name iyo first name laga rabaa middle name muhiim xataa ma ahan balse iska geli middle name-ka shahaadada soo magaca kugu qoran yahay shahaadada muhiim ah shahaadada magaca kugu qoran baasaboor hadii la isku qabsadana baasaboorka iyo shahaadada iyo magaca gelinaysid waa inay isku si ahaadaan xarfaha iska sax hadhow DV lottery markuu furmo ha degdegin tartiib waqtiga qaado magaca sidoo kugu qoran yahay u gali ha kala shaqalada ha kala bedelin shahaadada waa ku celinaya shahaadada baasaboorka iyo lotteryga waxa gelinaysa ha is wada lahaadaan magacaaga awoowe magaca aabaha iyo magacaaga sanadka dhalatay bisha iyo maalinka intaasba waa muhiim si fiican in aad u galisid waa ku soo celinaya mar kale magaca awowga waa last name-ka first name-ka waa magacaaga middle name-kana waa magaca aabaha bisha maalinta sanadka intaasba waa muhiim inaad si sax u galisid horana waa u sheegay haddana waa ku celinaya waa muhiim hadaa wax iska khaladid hadhow adiga waxay kugu noqonaysaa carqalad ama dhibaato ku keenaysaa soo marka dhibaatadaas ugu fogaatid mar walba iska hubi hubsiima hal baa la siistaa ee dhahan Soomaalida intaas waxa uu gudbayaa magaca waxbarashada waa sheegay email sax ah waa sheegay maxaa la dhahaa inaad single tahay iyo inaad married tahay caruur hadaa haysto wax oo dhan meesha gelinaysaa haddii aad kala tagteen divorce da gelinay hadhow waxa laga rabaa inaad keentid warqad cadeynaysa inaad qofkaas kala tagteen ilmaha hadaa ku xariisanaysid ilmaha waxa laga rabaa magacyadooda iyo sawiradooda iyo sanadkii dhashteen bishii taariikhda maaragtay iyo maalinka wax oo dhan same thing mar walbana qofka ugu horeeyo oo primary noqonayo asagana waxa lagu baahan yahay waxbarashada qaybta waxbarashada ka soo qaad xaaskaaga waxba ma aysan baranin balse adaa wax baratay adaa primary iska dhigaysid haddii labadiin wax barateen iyadana kugu xareysato adigana ku xareyso ilmahana ku darsan kartaan so DV lottery xareyntiisa aad u fududahay uma baahnid qof inuu ku caawiyo uma baahnid qof inuu ku xareeyo uma baahnid in maaragtay qof aad tuugtid telefoon hadaa haystid telefonkaaga xareysan kartaa computer hadaa haystid computerkaaga xareysan kartaa waa wax aad u fudud dadka badanaana mar walba waxay iska dhaadhiciyaan qof Mareykanka ku tagay DV lottery duu ku xareeyo ku soo baxaa wax ka jira malaha waa khuraafaad waa huuha 2017 Mareykan markaa imaaday ilaa hadda xareynaya hal qof salaam calaykum liim soo dhihin wallahi wax baaragtay nasiib uma leeyahay markaa xareysanaayna sida dadka safarkayga la socday ani ma xareysanin oo yar walaalkay oo saaxiib aan ahay ay xareeyay ninkaasna 2016 ilaa hadda qofka kaliya uu soo baxay lotteryga aniga waa qof kale ilaa hadda ku guuleysana marka waxaan waa iska nasiib ha iska dhaadhicinin maaragtay qofkaas duu ku xareeyo ku soo baxaa qof Mareykan jooga iyo waxaas ha iska dhaadhicin marka insha Allah wixii maaragtay su'aalaha qabtaan commentiga iyo qora waa idinka soo jawaabi doona haduu Ilaahay yiraahdo muuqaal kalena waa ka soo sameyn doona DV lottery waa waxa kaliya maanta dhan ka hadli karo sababtoo ah khibrada u leeyahay waa fahansanahay waa aragtay waa ku raaxaystaa marka ka hadlaayo marka insha Allah waana soo badin doona muuqaalada aan kaga hadlaayo DV lotteryga su'aalahan jaanis idin siin doona Snapchat-kayga halkaan soo dhigaya sidoo kale TikTok-na waa igu soo diri kartaa fariimihiina Facebook iyo Instagram labadaba ma isticmaalo haddii aad fariimo ku dirtid igaraal noqo mar hore igu dambeysay deactivate iska dhahay oo ma isticmaal gabi ahaan Instagram iyo Facebook Snapchat
iyo TikTok iyo YouTube waa saddexda aalad kaliya aan hadda isticmaalo Snapchat iyo maaragtay TikTok ana fariimihiin igu soo diri kartaan iyo wax su'aalo ah qabtaan YouTube kana fariimihiina commentiga igu reebi kartaan waan idinkaga soo jawaabi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo muuqaalka halkaas ku soo gabagabeyn doonaa aad kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalka hadda halkan ila soo gaartay waxa ka codsanaya inaad like saarto muuqaalka si dad badan u gaaro saaxiibadan la wadaag insha Allah inta muuqaalkan ku kulmi doono waxa idinkaga tagayaa bash barwaaqo iyo maal fara badan insha Allah في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته